Asalaamu calaykum kusoo dhawaada qaybtii sideedaad qaybihii hore waxaan ka hadlaynay Dart programming language iyo data type-kay leedahay iyo control flow-ga marka waxaan hadda usoo laabanay Flutter marka Flutterna waxaan ka hadlaynay row widget iyo casharadii hore haddii aad aragtid waxaan ka hadlaynay column widget iyo row widget marka programkan ayaan sameynay calculator app laakiin calculator appkan waan ku celcelinaynaa programka waa isku wada mid marka waxaan haysanaa row oo badanadan leh kabacdi waxaan haysanaa another row kale ayaan haysanaa oo sidoo kale ah marka programka haddaan ku celcelinayno ma fiicna saan waayo it's not a good programming marka waxaa fiican maaragtay inaad programka hal mar inaad qortid oo saacda maaragtay wax ugu celcelin marka saas marka meeshan ayaan ku joojinay waayo sababtoo ah haddii aan rabno inaan hal mar qorno programkan saan kuwaan hal mar ku wada sameyno waa inaan baranaa Dart marka Dart ayaan soo baranaya listiga waxay leedahay marka maanta waxaan sameynaynaa calculatorkan demadan ayaan ka bixinaynaa marka haddaa aragtid kuwaan dhan waa wada batano weeye marka batanadan wuxuu leeyahay maaragtay kuwo maaragtay AC iyo plus minus iyo numbero marka waxaan sameynaynaa waxaan another directory ayaan qoraynaa waxaan dhahnaa constant ayaan qoraynaa kabacdi directory gudihiisa waxaan sameynaynaa dart file ayaan dhahnaa constant okay ayaan dhahnaa kabacdi waxaan rabnaa inaan maaragtay numberadan inaan sameyno marka casharadii hore waxaan ka hadalnay enums iyo maaragtay waxay yihiin marka hadda waxaan qoraynaa buttons marka batanadan waxa weeye kuwan weeye AC plus minus modulo divide iyo numberadan 7 8 9 marka waxaan dhahnaa num 0 num 1 all the way to 9 ayaan sameynaynaa num 3 num 4 right marka waxaan dhahnaa copy ayaan sameynaynaa kan copy markaan sameyno afar jeer ayaan marka 0 5 6 7 8 9 kabacdi waxaan sameynaynaa AC ayaan qoraynaa kabacdi waxaan dhahnaa plus minus kabacdi waxaa ku xiga mod kabacdi waxaa ku xiga divide kabacdi waxaa ku xiga multiply kabacdi waxaa ku xiga minus kabacdi waxaan ku xiga add kabacdi waxaan ku xiga equal kabacdi waxaan ku xiga dot marka hadda waxaan sameynay batanadan waa kuwaan u baahannahay way aan haysano marka enumeration ayaan isticmaalaynaa waayo enumeration markaan isticmaalno kuwaan dhan waxay noqonayaan constant hodhowti markaan sameyno programkeena maaragtay khaladi waxaan ma sameynayno marka kuwaan hal mar ayaan qoraynaa hal mar ayaan isticmaalaynaa marka waxaan haysanaa batano maaragtay 0 to 9 marka 0 to 9 waxa weeye kuwaan weeye 0 to 9 waa ilaa intaan weeye dotka ka saar kabacdi markaas kabacdi waxaan haysanaa AC plus minus mod waa kuwaan weeye right kabacdi waxaan haysanaa multiply minus add equal dot marka kuwaan weeye ayakana iyo dotkan marka nambarada waan haysanaa hadda waxaan sameynaynaa list marka waxaan dhahnaa list right listigan is another list of buttons kabacdi waxaan qoraynaa buttons marka listigan waxa weeye 2 by 2 weeye marka 2D array weeye haddii aad taqaanid 2D array marka waxa weeye arraygan inta dhan waa array waa listigan gudihiisa waxa ku jira another list marka aad index 0 waxaan haysanaa another list index 1 waxaan haysanaa listigan kale index 2 waxaan haysanaa listigan kale listigan wuxuu leeyahay another list ayuu leeyahay marka I hope marka hadda waa ku explain garaynayaa marka listigu koowaad
waa kana index 0 weeye index 0gan wuxuu haystaa listi kale ayuu haystaa marka let's put comma here kabacdi waxaan dhahaynaa no here marka okay yes okay let's put comma here okay listiga koowaad waxa weeye AC button AC weeye marka bacdi waxaa ku xiga button plus minus kabacdi waxaa ku xiga button dot mode right kabacdi waxaa ku xiga button dot divide okay so marka indexku waa same weeye marka programka markaa dhamaystiro ayaan niisii sharaxayaa marka kuwaan ayaan dhamaystiraya kabacdi waa usoo laabanaya okay marka waan dhamaystiray marka hadda waa inaad isku dayda inaad fahantid marka waxaan dhahnay waxa weeye list within a list marka kan waa index waxa weeye kan index 0 weeye so index 0 waa kan weeye index 0s waxaan haysanaa another list ayaan haysanaa listigan wuxuu leeyahay another maaragta list oo ka bilaabanaya 0 marka for example haddii aan dhahno print let's say print buttons at 0 right index 0 index 2 haddii aan saan dhahno for example print haddaan dhahno wuxuuna marka waxaan aadaynaa index 0 kan weeye index 0 which is this kabacdi index 0gaas wuxuu haystaa another list oo labaad marka wuxuu ka bilowdaa another list wuxuu ka bilowdaa 0 1 2 marka kan ayuu soo printi karaynaya marka saas wey marka index 0 ayaad aadaysaa kabacdi listiganna wuxuu leeyahay another list oo dhoti 0 kan waxa weeye index 0 kan waxa weeye index 1 right kan waxa weeye index 2 marka kan ayaan soo printi karaynayna another thing haddii aan dhahno print index 4 2 example index 4 marka waxa weeye 0 1 2 3 4 marka 4 aadno we print 2 marka 4 index 4 wuxuu leeyahay kanna haddii aan dhahno index 0 weye kanna waxa weeye index 1 kabacdi waxaan soo printi karaynaynaa index 2 marka kan ayaan soo printi karaynaynaa marka haddii aad aadan aqoonin dot maaragtay 2D array multi array haddaan aqoonin inaad maaragtay tutorial waxaas inaad fiirsatid waa saad maaragtay ugu dulmartid ani waxaan dulmaray best list laakiin haddaad single list ama hal list haddaad taqaanid kabacdina multi arrayna sidoo kale weeye waa two list laisku diray oo ay isku dhex jiraan marka hadda sidoo kale kan waa inaad ka dhignaa constant marka waxaan ku tusinayay type-uu yahay laakiin haddii aadan aqoonisaan uma baahni waxaad dhihi kartaa bes waa ka saaraysaa kan still hodoti dart ayaan ogaanay wuxuu yahay marka haddii aad ku dhufatay haddii aan inta ku dhufatay kuu sheegay wuxuu yahay wuxuu dhahayaa list weeye listiga gudihiisa waxaa ku jira another list oo button marka saan waa samayn kartaa laakiin waxaan ku tusinayay data type-ka saad u heli kartid marka saan waa sameynay hadda marka let's go back to our programka aadaynaa kabacdi waxaan sameynaynaa kan koowaad ayaan copy dhahaynaa bes kan ayaan copy dhahaynaa kuwa kale delete ayaan iska dhahaynaa uma baahnin marka hadda haddii aan magaca u qornay kan waxa weeye buttons ayaan dhahnay marka let's go back here kabacdi casharadii hore waxaan ka hadalnay spread operator marka waayo hadda waxaan ku jirnaa column ayaan ku jirnaa columnkan children ayuu leeyahay marka xabadina uga soo saarnaa waayo marka waxaan dhahaynaa dot dot buttons ayaan dhahaynaa buttons right dot oh we need to import this about dot map ayaan dhahaynaa
mapkan wuxuu noo keenayaa waa list ayuu waayo maaragtay maaragtay every item oo ku dhex jira ayaan maaragtay map isticmaalayna marka kan markaa isticmaalayna ayuu maaragtay waa soo qaadaynaa oo list kasta marka element kasta waan soo qaadayna marka waxaa dhehnaa kan waxaa dhehnaa row marka remember haddii aad xasuusatid multi arraygan waa list weeye listigan wuxuu haystaa index 0 1 2 3 right marka kan markaa marayno 0 index 0 wuxuu leeyahay another list ayuu leeyahay marka kaas ayaan soo qaadana lakin remember markii haddii aad isticmaalaysid children oo column uu children leeyahay make sure at the end inaad dhahdid to list inaad dhahdo weeye kabacdi and don't forget to do curly braces kabacdi rowgan haddii aad xasuusatid rowgan gudihiisa maaragta wuxuu leeyahay another maaragtay list ayuu leeyahay marka waxaa dhahaynaa return row widget right semicolon at the end kabacdi childrenka haddaa xasuusatid wuxuu leeyahay another maaragtay row ayuu leeyahay waayo rowgana waa another list marka waxaa dhahaynaa remember hadda waxaan ku jirnaa row columnkana waxa waye children marka waa inaad isticmaalo another dot operator spread operator row dot map another map ayaan isticmaalaynaa mapkan waxaa dhahaynaa fab button ayaan soo qaadaynaa kabacdi waxaa dhahaynaa egan waa element marka waxaa dhihi kartaa element ama data ama buttons button ayaan dhahaynaa each hadda waxa waye for each button waaye hadda for each button way right let's put comma at the end so it formats now we get an error but don't worry about it we'll fix it kabacdi waxaan dhahaynaa right now let's put so now what we need to do is we need to get the title of each buttons right we need to get title right now we don't have a title right so haddii aan dhahno buttons and for example haddii aan dhahno title text label haddii aan dhahno row buttons right to string haddaan isticmaalo maaragtay and let me see if this has okay good okay let me run this see what happens now we print all the buttons if you remember we print AC button plus minus right we're printing this button AC plus minus we're printing modulo and divide right all of it lakin we don't want that marka we need to go back to here right so what we need to do actually is let's create a model directory let's just put a model here this model waxaan sameynaynaa dot ayaan dhahaynaa waxaa dhahaynaa calculator model okay let's create a class ayaan sameynaynaa and class kama hadlin lakin hadda ayaan xoogaa yirisa kasii taabanaya marka waxaa dhahaynaa calculator right marka class waxaa weeye maaragtay calculator class waxaa weeye blueprint ama maaragtay saad maaragtay u isticmaali lahayd objects marka classkan haddaan rabno inaan isticmaalo waa inaad sameynaa an objectigaas hodhowdi wuxuuna tusinayaa maaragtay propertyga ama hantiday leedahay classkan uu leeyahay propertygaas ayaan ka isticmaalaynaa marka right now let's create a static constant buttons and then let's use buttons let's use that and remember we have two variables that are identical so let's just put button list okay so now let's also use
and then let's use a final, which is buttons, right, which is the one we created our enums. kabacdi waxaan dhahnaa button data, for example. waxaan create dhahnaa constructorku wuxuu naga caawinayaa button kasta aan isticmaalayno ayaan u pass gareynaynaa saan hodhowti aan functionkan u qorno. For example aan dhahno string get title. marka titlekan waxaan marka for each button aan u passno waxaan helaynaa title. marka titleka wuxuu noqonayaa ac plus minus. marka get waa maaragta return typekeeda waxa weye string, marka kan function weye. marka functionka haddii saan u qorno string get title, right, kan waa functionkan return typekiisu waxa weeye string. marka waxaa dhahnaa return this is a string, for example, right. marka saas weeye. laakiin kan waa syntaxigan waa java style weeye. laakiin dart haddii aad isticmaashid maaragtay get haddaad dhahdid hodhowti titleka ayuu ku siinayaa. marka anagu waxaan rabnaa each button aan u baasayno inaan titleka helno. marka since markaan objectiga markaan sameyno waxaan u baasaynaa buttons haddaa aragtina. if we go here buttons waxa weeye kuwan weye buttonadan. marka waxaan sameynaynaa waxaan isticmaalaynaa switch case ayaan isticmaalaynaa. switch case kabacdi button data ayaan dhahaynaa. haddii aad xasuusatay switch case waan ka hadalnay. switch casekan wuxuu leeyahay wax fara badan. marka haddii aad ku dhufatid implement wuxuu ku dhahayaa you're missing add divide. marka all of this waa inaad maaragtay implementada. marka we have to just say add missing. kabacdi hadduu kuu sheegayaa zero hadduu yahay buttonka waxaad dhahaysaa return zero ayaad dhahaysaa. kabacdi right, kabacdi hadduu buttonka one yahay handle this case waxaad dhahaysaa return one. hadduu two yahay waxaad dhahaysaa return two kabacdi break deh. markuu return two dhow programka exit ayuu garahayaa. hadduu three yahay waxaad dhahaysaa return three. hadduu four yahayna waxaad dhahaysaa return four. you get the idea, I think. marka waxaa sameeyey waxa weeye maaragtay numberada hadduu maaragtay numberka multiply yahay x yaa soo saaran. hadduu divide yahay return waxaa dhahnaa titleka divide waa slash mode waa under percent sign. marka saan ayaan soo dhamaystirnay. marka hadda haddii aad maaragtay aadna meesha hodhowti waxaan isticmaalaynaa waxaan u baahanahay haddii aan aadno inta kan to string ma dhaheno. marka waa iska diraynaa, waa tirtiraynaa kan I want to delete it. okay, markaad dirno kabacdi marka hore waxaan object ayaan createynaa. create object. marka waa inaad sameynaa object. waayo calculatorkan waa inaad object create dhahnaa kabacdi saan u isticmaalno. marka waxaan dhahnaa final calc. kabacdi waxaan dhahnaa calculator. kabacdi calculatorkan wuxuu qaataa waxa weeye wuxuu qaataa maaragtay an object ayuu qaataa oo button ah. marka waa inaa u baasnaa buttonkana inta ka helayna waa inaa u baasnaa button kabacdi semicolon. marka each button aan sameyno ayaan ugu baasanaa. kabacdi waxaa dhahaynaa semicolon here. kabacdi waxaa dhahaynaa return fab button. kabacdi title, where is the text label. kabacdi waxaa dhahaynaa calc dot title. kabacdi now let's put semicolon at the end. kabacdi waxaa dhahaynaa run ayaan dhahaynaa. hadda waa kana marka hadda title ayaan helnay. every button aan u baasno title ayaan helaynaa oo hodhowti titleka ac plus minus ayaan print soo dhahaynaa.
sidoo kale haddii xasuusatay waxaan isticmaalnay static constant marka static wuxuu sameynayaa maaragtay classka markaan sameynayno maaragtay button listigan ayuu maaragtay memoryga ayuu meel maaragtay u sameynayaa meesha memory markuu u sameeyo class kasta classkan gudihiisa maaragtay wuu maaragtay available ayuu noqonayaa meel kasta aad joogtid waa uga wacanaysaa uma baahnid inaad create maaragtay object for example inaad dhahdid maaragtay let's say object for example object kabacdi new object uma baahnid inaad saas samaysid haddii aad rabti inaad maaragtay access ama aad rabti inaad isticmaashid waxaad u baahan tahay bes inaad maaragtay class nameka inaad isticmaashid aad kabacdi hodhowti dot operator isticmaashid marka haddii aan ku laabano here hadda waxaa dhahanaa instead of buttonka uga wacayna waxaa uga wacanaa calculator kabacdi calculatorkaas we don't need calculator dot button list ayaan u wacanaa kabacdi button listigaas wuxuuna siinayaa all the maaragtay map for each laakiin don't forget to put 3 operators here marka hadda waxaan isticmaalaynaa maaragtay static variableka ayaan isticmaalaynaa okay it's giving me error okay we need to import okay hadda run ayaan dhahaynaa markaas error expected declaration but yeah, what happened here okay marka saas ayaad u isticmaali kartaa static constant marka hal mar ayaad meel create markaa dhahdid in memoryga ama class memoryga meeshuu classkan ku jiro ayuu available noqonayaa meel kasta rabtina uma baahna inaa objecti aad dhistid saan camal maaragtay saas sameynay if you look inta waxaan sameynay we created object ayaan sameynay kabacdi objectigaas waxaan isticmaalay dot operator saan u helno maaragtay ama aan u isticmaalno methodka ama functionku leeyahay laakiin static constant markaa isticmaalisid uma baahna inaa new object samaysid classka u wacaysaa kabacdi dot ayaa dhehe kabacdi any variable oo maaragtay static ayaa isticmaalaysaa I hope you understand now waad ku laabanaynaa inaa marka hadda buttonkeena saas ayuu yahay marka color haddaa siino background color let's say color is red kabacdi let's hot save kabacdi waa arkaynaa buttonada dhan ayaan arkaynaa laakiin saan rabna maaha waxaa u baahanaha maaragtay classkeena inuu maaragtay saan noqdo marka let's go back waxaan ku laabanaynaa button okay fontka ayaan increase dhahaynaa marka waxaa dhahaynaa font size 35 okay font sizeka increase ayaan ka dhignay looks good okay hadda waxaan rabnaa buttonkan inaan buttonkan sameyno ayaan rabnaa marka waxaan isticmaalaynaa maaragtay ternary expression marka waxaa dhahaynaa text labelka hadduu yahay zero yahay question mark marka textigan hadduu saxsan yahay ama true hadduu yahay waxaa dhahaynaa stadium border otherwise waxaa dhahaynaa circle marka stadium borderkan wuxuuna siinayaa maaragtay circle camal oo maaragtay geesaha maaragtay xoogaa saan ka yahay hodhoti saas ayaa siinay kabacdi geesaha kale ayuu maaragtay cornerka leeyahay marka stadium ayaan isticmaalaynaa haddii aan save dhahno for example if we hot restart or whatever uma jeedno saan uma jeedno marka waxaan sameynaynaa we have to give a padding marka padding waxaa dhahaynaa constant edge insect all 20 ayaan dhahaynaa right we'll save 20 ayaan save garaynay laakiin saan uma rabno so we have to use text label waxaan isticmaalay text label marka waxaa dhahaynaa text label hadduu yahay 0 if that is true kabacdi waxaan isticmaalaynaa another edge insect ayaan isticmaalaynaa hadduusan true ahaynna kan ayaan isticmaalaynaa marka
So if the text level is equal to 0, then we have to use constant h insert from. Marka from, marka anaka ayaan u sheegina inta spacing aan rabna inaan sameyno. Marka wuxuu qaataa left, top, right, bottom. Marka waxaa dhehnaa from left, maybe waxaa dhehnaa 10, top waxaa dhehnaa 10, right waxaa rabnaa marka inaa maaragtay right aan dheereeno, marka 120 ayaan dhehnaa. Bottomkana maybe 10 ayaan dhehnaa. Markaas waa arkaynaa bulsuu noqdo. Okay, marka saan ayuu noqday, which is good. Saa rabna weeye. Marka okay, haddii kale nambaro kale hataa aad ku fiirino 20, let's see haddii si fiican u noqdo. Okay, not bad. Okay, 20 ayaan ka wada dhiganaa. Okay, way saas waa ku qanacsanahay. Laakiin haddii aad rabtay adi waa maaragtay waa isku dayi kartaa, you can play around. Hadda laakiin hadda dib ayaa jira, waayo hadda batankeena saan ayuu yahay, laakiin saan ayaa rabnaa inuu noo noqdo. Marka waxaan isticmaalaynaa material, raw material button ayaan isticmaalaynaa. Marka raw material button saan rabnay nooma sheegayo oo saan rabnay uma soo baxayo. Marka waxaan isticmaali karnaa raise button ayaan isticmaalaynaa. Marka raise button hadda haddii aad haysatay latest maaragtay Dart, raise button waa maaragtay deprecated waaye ama waa old, laakiin waa isticmaali kartaa haddii aad rabtid. oo maaragtay haddii aad rabtid inaad change garaysid waxaad ku bedelaysaa elevated button. Laakiin anigu you can still use raise button. Marka waxaad dhehaysaa ignore deprecated method or a member. Already waa isticmaali kartaa, laakiin hadda saan kan uma baahnin, waayo fill color is for raw material. Marka waxaan isticmaalaynaa color ayuu leeyahay. Colorkana waxa weeye background color. Okay, kanna uma baahnin, constraint uma baahnin. Marka ama iska delete ama comment iska dheh. Now if we run ama hot reload haddaa dhahno, hadda buttonadeena is okay, everything is good, way isku wada dhow yihiin, wax dhiba ma jiro. Okay, marka wax kasta okay, hadda let's go back. Haddii aad maaragtay okay, hadda waxaan rabnaa inaan sameyno color. Marka haddaa u jeedid waxaan haysanaa 3 color oo kala duwan. Colorka ugu koowaad waxa weeye maaragtay grayish weeye, wax colorka gray weeye. Colorka labaad waxa weeye madow weeye. Colorka saddexaadna waxa weeye orange weeye. Marka 3 color ayaan haysanaa. Marka sidoo kale waa sameyn karnaa modelka ayaan aadaynaa. Kabacdi waxaan dhahaynaa color, another function ayaan qoraynaa. Functionkan wuxuu noo keenayaa, wuxuu soo saarayaa color ayuu return typekiisa waa color. Marka waxaan dhahaynaa get background color, for example. Okay, background color markaa keeno, you can import .ui if you like. Marka waxaa dhahaynaa switch case ayaan isticmaalaynaa. Haddii aad ku laabano meesha where is haddaan ku laabano switch case, right? Switch case kan is based on button data. Kabacdi waxaan sameynaynaa hadduu buttonka yahay AC plus minus more, waxaan return dhahaynaa gray. So waxaan dhahaynaa switch case button AC. Caseka hadduu button AC yahay ama caseka hadduu yahay maaragtay button dot mode hadduu yahay ama hadduu yahay case button dot plus minus, hadduu buttonka saas yahay, saddexdaas hadduu yahay, waxaan dhahaynaa return colors dot colors dot gray ayaan return dhahaynaa, gray ayaan return dhahaynaa, right? Haddii kale waxaa dhahaynaa break ayaan dhahaynaa marka hore. Break markaa dhahdid, hadduu caseka yahay case, hadduu marka caseka labaad waxa weeye
hadduu kalaradan hadduu orange ama hadduu buttonka hadduu yahay divide multiply minus plus equal hadduu yahay waa inaad return dhahnaa colorkan marka waxaa dhahaynaa case buttons dot add haddii kale hadduu yahay maaragtay copy ayaan dhahaynaa san so it'll be faster marka hadduu yahay add ama hadduu yahay minus ama hadduu yahay multiply right ama hadduu yahay maaragtay so we have divide haddii kale equal sorry equal marka 1 2 3 4 shantan hadduu yahay 1 2 3 4 shantan hadduu yahay waa inaan dhahnaa return I believe waxaa dhahnaa colors amber hodoti haddii aad rabti maaragtay shade ayaa dhahaysaa shade maybe 900 ama 800 shade 800 aad dhihi karnaa otherwise hadduu intaan kala yahay maaragtay defaultiga waxaa dhahnaa default case marka hore make sure you break waa inaad ku dhufataa marka hore haddii kale haddaa break ku dhufanin next case ayuu sii haddii aa maaragtay casekan comment haddaa dhahno kan kale ayuu maaragtay kasii wadayaa laakiin anaka waxaa rabnaa inaan soo return markuu dhaho inaad break dhahno marka waxaa dhahnaa default caseka hadduu yahay waxaa return dhahaynaa colors dot gray shade 900 haddaa dhahno let's see shade 900 waa 2 dot maybe 800 kabacdi waa probeynayna haddii kale hodhowta waa bedelaynaa dib male marka meeshaan aan colorka gelinay haddii aad xasuusatid meeshaan aan colorka gelinay hadda waxaa dhahaynaa calc objectiga aan grade garaynay kan ayaan isticmaalaynaa waxaa dhahaynaa dot background color comma marka let's hot reload okay hadda waa kan nambarada uu isbedelay marka waxaan haysanaa maaragtay ac button plus minus iyo maaragtay kuwan waa gray ish weeye kuwan kalena waa kalarada maaragtay kale weeye oo maaragtay orange ama yellow kuwa kalena saas ayuu yahay marka waxaan sameynaynaa nambarada ayaan ku laabanaynaa colorka ayaan fiirinaynaa waxaa dhahaynaa shade 300 ayaan fiirinaynaa inuu isbedelo 2 white weeye 500 okay yes not bad 500 ayaan isticmaalaynaa kan kalena waxaan fiirinaynaa 900 suu noqdo 900 okay wey haddii kale waxaa isticmaali kartaa for example haddaa rabtid somewhere in the middle haddaa rabtid inaad isticmaashid 850 aad dhahaysaa kabacdi markaas 850 saas ayuu isku bedelayaa kan sidoo kale haddaa rabtid inaa maaragtay adii aad gelisid nambaro waxaa dhahaysaa 350 camal haddaa dhahdid saas ayuu isku bedelayaa hodhowtii 450 haddaa rabtid inaad siisid saas ayuu isku bedelayaa ama 400 let's use 400 yeah okay nambaradan waa maaragtay kalarada waa probeyn kartaa marka hadda waxaan sii sameynaynaa space ayaan siinaynaa oo isku dhow yihiin kuwan marka haddaa rabtid space yaris inaad siisid waxaad isticmaalaysaa size box height ayaad gelinaysaa maybe 20 kabacdi save markaa dhahday space badan ayuu inta ka leeyahay which is okay marka it looks good waxaan sameynaynaa hadda app bartan ayaan waxaan ka dhiganaa calculator ayaa inta ku qoran marka waxaan sameynaynaa calculator ayaan inta ku qoranaa here let's put calculator hot save markaas hadda it looks similar to what is expected marka waxaan sameynaynaa next waxaan sameynaynaa let me see haddii aad okay wax kasta okay weye clean up ayaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa kan mainkan waxaan meeshan keliis ayaan saas ugu sameynaynaa marka waxaad sameynaysaa screen camal directory bacda waxaa dhahay screenkaas waxaad dhahaysaa dot file bacda waxaa dhahay calculator
calculator screen kabacdi meeshaas ayaan paste ku dhahaynaa. Make sure you import, waa inaa import dhahda material kabacdi material markaa dhahdid tuwaanna waa inaad import dhahdaa, tuwaan kalena waa markaa import dhahdid dart wuxuu ku siinayaa maaragtay default ayuu ku siinaya, laakiin waxaad dhigi kartaa colon no dot I mean dot markaa dhahdid wuxuu ku siinayaa bes meeshii ku jirto. Saan ayaan maaragtay best practice waa saan weeye. Marka waxaa dhahaysaa dot ayaa isticmaalaysaa hodhowti moralka meesha ku jira ayaad keenaysa. Marka saas ayaa isticmaali kartaa. Hadda error ayuuna siinayaa, marka waxaa dhahaynaa yeah this is shortcut. Saas ayaa samayn karnaa. Okay, what else? I'm doing this as I'm just making this video as I'm going through. So marka hadda waxaa sameynaynaa hot restart ayaan dhahaynaa, so it looks good. Okay, marka waxaa also sameynaynaa function con. This function we have to pass in from here. So final function on press kabacdi pass it on here. This that on press kabacdi kan ayaan u dhiibaynaa on press. Hodhowti when you go on here screen meeshaan this function we have to pass in on press kabacdi now it doesn't do anything, but later we'll have to hodhowti waxaa sameynaya update ayaan ku sameynaynaa. Okay, marka restart ayaan dhahaynaa. Okay, marka you have to understand waxaa sameeyey. Marka function ayaan ugu baasnay, marka functionkan ayaan u baasaynaa. Functionkan hodhowti constructorka ayaan uga baasaynaa kabacdi waxaan u dhiibaynaa on press ayuu maaragtay points to on press. Hodhowti markaan calculator aadno markasta aan press dhahno buttonkan waxaa rabnaa inaan maaragtay reference ahaan inaan ugu dhiibno inta, so hodhowti maaragtay aad usii maaragtay aad wax kusii samayn kartid. Marka on presskan function marka fab buttonkan wuxuu qaataa on press title iyo background. Hodhowti markaa u baasno tuwan marka ku dhufatay inta in this information markaa u baasno hodhowti tuwan ayaan reference ahaan ama it points to this. Marka for next video waxaa sameynaynaa we'll do the operations and doing stateful widget and stateless widget. Marka the difference hadda right now our widget keena waxa weeye stateless widget weeye. Marka waxaa rabnaa inaan ku bedelno kan to stateful widget. Hodhowti saa maaragtay buttonka markaa ku dhufano si nambarada waxa ugu soo waxeysmaan, laakiin hadda UI-ga is dhan.